We're here. I think this board may be familiar. That's the National Theatre of Somalia. Last time Hidayah didn't join us for the last vlog, but today we're here at the opening ceremony. Hidayah, welcome. Thank you, Sarah. maanta waxaa joognaa National Theatre-ka waxaa u imaanay nasiib film ay sameeyeen oo la dhahay shabakada oo aad iyo aad cajiib u ah si hore u sheegnay we taking over Nigeria all that we coming ahead wallahi amazing dad fara badan oo labisan baa isku yimaaday I can't wait inaan aragno meeshaan bandhig lagu sameyn doono filmka waxaan rajeynayaa in anaga naftirkeen experience fiican ka qaadan doono Somali film industry oo korayso waxay noo tahay khibrad weyn inaan maanta marqaati ka nahay Here at the National Theatre, and guess who I found? Our team also doing their own video. There's a documentary we're working on discussing and talking about the filming industry in Somalia. So yeah, and we just happened to find each other here. Me and Hidayah were together. Marka ala team kan wala garanaya caan way dadkana caan way meesha u jeedid ya Abdiwali haye I am Ramos. I am Igal. I am Shuaib. I am Sam. I am Wawa. I am Sarah. Okay. First time same I think first time Kawarama manti حالته wallahi de Okay, and okay Abduli okay we were in the middle of a video, but it's okay, it's cool. Okay, so Abdiwali was taken. aniga wallahi waa dhibana waa soo labistay waxa lagu qalday protocol waa soo labistay kabliyeer baa lagu qalday shalay meesha qadada markay joognayna kabliyeer haddana waa protocol arwaa dimiyaan u maleynaya qadadii aaw yes it's red haye marka waxa dhacday waa ii yarto intii kaal wariya maxaa bariiskii baastada dhulka cagaha ka qaaday waa u reer magaalo waxa rooy oo la dal lagu keenay iska dulqaado shalay sheekadii diraal ah halkaas ka timid hadda waxa soo noqday update shalay waxa lagu yeeraa raalaha but I couldn't understand what the raalaha was about. Wallahi, I think limited leenahay when it comes to fashion and fashion ka wadanka xogaa waxa loo baahan yahay inaan documentary series ka sameeyno. But today we're here for the opening ceremony of Shabakada, and last time we went we did a little vlog. Today we are in the National Theatre with everybody here. Hi, tell me, how are you guys feeling? Like, tell me about the theater itself. What is your first impression? What are your emotions? What are you thinking about? Start with Mahad. I think it was first time I microphone ko wadi haysta because hadalka isku fiicnay. Aniga first time ka aan National Theatre ka imaanayo marka waxa weeyaan meeshii kooxihii suugaanta makaranka waqtigii dawladii hore waxa weeyaan macna gaar ah ay sameynaysaa inaan joogo ismihii iyo CDC aan wax badan laga bedelin ismihii something cool. aniga mikrofoonka ana qabanaya adiga waxa weey madax baa tahay waan nasanaysaa waxa weey sidoo kale anigana markii ugu horeysaan imaanayo halkan imaanshaha ama in dadku u soo daawasho tagaan caawi hordhaca ama bandhiga taxanahan waxay dadka dib ugu celinaysaa xasuusahooda xilligii barisamaadkii oo halkan sidan oo camirnay dadku ka soo qayb galayeen waliba live ay ahayd oo dadku halkaas si toos ah riwaayadaha ay uga qayb qaadanayeen taasina waxay ahayd dabcan caawa dad badan xasuusahooda dib bay uga laabanayeen والله يا ملح ما يبصل سوق هذا aniga horta marka kaftanka laga soo tago tiyaatarkan hooyaday waa imaan jirtay daawadayaasha ku xirnay ahaan jirtay iyadii aabo imaan jireen laakiin waa nasiib daro aniga maanta waxaan jeclahay islaantu inay la socoto xaafaddan laga soo tagay jaam jira awgiisa ila suuqiga iska xireen waa kaftan meesha inay macno weyn bay sameynaysaa aad baa ugu faraxsanahay Sahra waxaan maleynayaa qofkii ugu badan ee meeshan qofkii ugu badnaa yimaada ragga kale aan kala simanahay oo wada qiiroonina in halka la yimaado You guys are giving me too much credit.
maanta igu qaata 10 jeer haddii la ii waco aniga waxaan u ekahay and it's true horta markii ugu horeysay maaha tiyaatarka qaranka imaado markii ugu horeysay aan imaado meeshaas award ka qaatay biladan ka qaatay filmaanta short filmska ee xuquuqul insaanka filin yaraan sameynay breaking barriers la dhaho ka tilaabada caqabadaha wuxuuna ka hadlayay gabar oo yani disability-ga marka inaysan disability inability ahayn marka it was beautiful inaan ka mid ahaa dadkii halkaas bilad ku qaatay kaalin fiicanna ka soo qaatay awardska waa qaab fiican oo lagu imaado the first time aad tiyaatarka imaatid inay tahay mid adigoo award qaatay insha allah waxaan rajaynaa dhalinyaro badan ayagana sidoo kale tumarkoodii inay xagga istaagaan oo ayagana ay noqdaan superstars haddii halkaa imika aan cararo tiro ma ka soo gaaraysa isku day yani inaan koro ma kori karaa sug wala sii horgalinaysa inta daqiiqadan ku kori karaa okay let's start ii qaba saacadda ii qabaya 1 2 3 That's nice. Wow, to the top. waxba toobka ba igaga harinba laakiin saan ku qurxoon yahay inaan ku dhameeyo ma Sare soo halkaa ma aragtay inaga halkaa hadaynu qaylina maxay dadku oranayaan ana harta qayliyo waa ma isku daynaada 1 2 3 ordana loogu soo bixinaa meesha orod sare su'aal baan qabaa hay asxaabta filimkaaga ee awardka ku guuleystay English buha af Soomaali ahaa laakiin subtitle buu lahayn gabdha ayaa sameeyay filimkaas gabdha ayaana ku jiray oo jilaayay and everything was women and one of Somali laakiin wuxuu leeyahay subtitle oo English ah and waxaa rabaa screening inaan u sameeyo laakiin screening saan oo kale ma noqonayso but waa imaanay waxyaabo badan waa imaanayaan insha Allah So I caught up with the big guy, and last time when I was doing the vlog about will Somalia become the next Hollywood, I made a mistake with his part. I'm going to let him introduce himself. Here you go. Introduction kaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magacaygu waa Cabdishiid Mukhtaar oo ku magac dhan Abu Motion. Waxaan ahay mid oo ah editor oo markaas soo saaro muuqaalo oo adii tusaale oo soo saaro wajaremo. Oo soo saaro muuqaalo badan oo aad iyo aad u qurux badan gaar ahaan ku motion graphic hadda muuqaalka taxnaana waxa ugu jira dhanka VFX-ka mis graphic-ka adii insha Allah waxaan rajaynayaa inay cajibiso wadamada kale insha Allah waxaan rajaynayaa Soomaaliya ka noqon wadamada kale waxaan rajaynayaa ka noqon number 1 adii waan arki doonaa insha Allah Thank you so much. Ka waran maadaama aad dadkii ka shaqeeyay filimkan oo maantay dadkaanan ay rabaan inay soo daawadaan dadkii ka shaqeeya qayb ka ahayd qayb weyn sax How do you feel marka dadkan dhan oo fiirsanay maanta waxaad soo qabateen wallahi bilow farxad weyn waa la soo koobi keen qofka moogtaa wuxuu asii maantana ku soo daalay oo ku dhafraay oo la arkay yani dad oo fiirsanayo yani wallahi xilw waxa lagu tilmaamo shay kari ma faham yani ma aqdir awsaf الشعور yani marka وانا والله بالله dadka yani dadka yani dadka idil makano xarjeen ajbiso muuqaalka oo yani waa lagu dadaalay kala ilaabwa Amazing. Thank you guys for the wonderful videos you produced. Anaka laftarkeena we are excited to see what's going on inside there. And all these people halmara isla fiirsanayno. It's a beautiful thing. So good luck and أنا حتى أنا ما فيرسنين ما فيرسنا ولا أنا خايف كم فيرس لكن أنا فيرسر إن شاء الله. إن شاء الله. Thank you so much and see you inside. واريمك الدبك معاد النقيا
halkaa lagu raaxaysto wariyaa kubaasha hey hooti hooti saasaa rabaa وشعيب صنداري وفقل القص يا وين وشعيب صنداري تبيش معفوش وابروري انت اللي قد ملعب يا وين Oh my God, all my effort is gone. I was talking to the camera and I did not even know this was on. So I'm gonna keep that in mind. Next time I'm gonna make sure that this is on, okay? We just left the opening ceremony. It was amazing. There was beautiful performances. These performances, the culture dance, wallahi wa hasu hasuste. Like, you know, the Hobala the Wapari, when I searched them on like YouTube, but like in real life, wallahi, it's amazing. And we saw a documentary about like how the film was made, how the series like was made, and then we saw the series itself, like the first episode. And let me tell you this, it's very interesting. Anyway, we're here now. Enough of the movie. We were feeling to come to Carmel. And we got that sizzling pan. Although the sizzle is done, I'll probably put it on as a B-roll. But yeah, Carmel is one of the best restaurants in Mogadishu, right? I'm not gonna talk too much. I am gonna eat. Yeah, I look spectacular myself. And I'm gonna call this a night. I didn't get to film much, but I hope that I have some sort of content in there. And until then, see you next time. Bye.